kulanti wanaagsan qiyaartana la socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan muuqaal kooban baan halkan idinkula wadaagi doonaa anigoo inta badan xogaha dagaalka gobolka bariga dhexe ku saabsan maanta ku baahin doona xogaha ugu badan ku helaysaan laakiin aan si kooban idinku dulmaro waxyaabaha taagan qodobada aan halkan ku sheegi doono maanta dagaalka dhacay waxa uu ahaa mid la wada sugayay oo in badan baa 24 saac ee ugu dambeeyay ka hor dagaalku intaan u dhacin qubrada qaar ay tilmaamayeen in dagaalku noqon karayo mid xoogan oo dhinacyo badan taabanaya isla markaana la qaadi karayo maxaa ka dhacay Dahraan Asfahan Karmanshaah iyo Karaj oo maanta ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ay duqeeyeen maxaa ka dhacay dawladaha Carabta maxaa qabsaday duqeymaha iyo gantaalaha wada jirka ah oo ay sida xoogan u adeegsadeen dawladda Iran ayaan ku sheegi doonaa dawladda la yiraahdo Franciscuna Emmanuel Macron ayaa hadla waxa uu leeyahay dagaalkan waxa uu abuuri doonaa cawaaqib xun oo gobolka iyo saameyn ku yeeshay guud ahaan adduunka Iran waxa ay duqeyn adag ku qaatay qaar ka mid ah dawladaha Carbeed Khamenei iyo mas'uuliyiintii sare ee dawladdiisu xaggay ku sugan yihiin waxaan sidoo kale barnaamijkan ku lafaguri doonaa khiyaartayna la socotay xogtii ugu dambeysay ee dagaalka gobolka bariga dhexe iyo waliba duqeymaha kala duwan ee la qaaday madaxda Iran halka ay joogaan hadal ka soo baxay Mareykanka iyo Iranna waan kula wadaagi doonaa insha Allah waa maasanteen ku soo biiray YouTube-ka subscribe saara YouTube-ka kale Barrow Show-na subscribe saara waa maasanteen soo dhawaada Safari Remit ayaa ka haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo ku sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay ku saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka ku muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteen kadib wadanka Iran waxa uu la kulmayaa duqeyntii iyo dagaalkii labaad oo ay si wada jir ugu qaadaan Mareykanka iyo Israa'iil dagaalka durbaba waxa la soo warinayaa gudaha Iran in ka badan 40 qofood inay ku geeriyoodeen sida ay tabiyeen wakaaladaha kala duwan ee wararka ee dawladda Iran magaalooyinka la weeraray ayaa waxa kamid ah magaalada Dahraan oo caasimadda wadanka Iran magaalada la yiraahdo Karmanshaah oo ku taala gudaha wadankaasi iyo Karaj iyo sidoo kale magaalada nuclear-ka xarunta ah uu ku yaala ee Asfahan wararka waxa uu ku bilowday wasaaradda amuraha dibadda ee wadankaasi kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay daqooyin direen dooriya halkaasi ku dhufteen kadibna waxa ay weerareen halka loo yaqaan Majmac al-Murshid oo ah goobta uu ku shaqeeyo Ayatollah Ali Khamenei oo ku taala gudaha magaalada Dahraan dawladda Iran ayaa goor dhaweyd war ay soo saartay waxa ay ku tilmaantay guud ahaanba madaxda sare ee wadankaasi oo ay ka mid yihiin Ayatollah Ali Khamenei iyo waliba Mas'ud Pezeshkian Ali Larijani iyo sidoo kale Shinqiti oo ah ninka malafka nuclear-ka gacanta ku haya iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda uu ka mid yahay Maxamuud Axmed Najaad in ay badbaadeen waa madaxweynihii hore ee wadanka Iran laakiin hadda waxa soconaya duqeymo iyo waliba meelo kala duwan oo adag gobaha duqeymada ay ka soconayaan waxa kamid ah Shiraz oo la soo warinayo gantaalaha difaaca hawadu inay shaqeynayaan sida ay tilmaameenba dhinaca kale ciidamada Mareykanka ayaa duqeeyay ayaa la kulmaya duqeyn kala duwan sida uu ku waramayo wargeyska Wall Street Journal ciidamada Mareykanka waxay la kulmeen buu leeyahay maanta saldhigyo kala duwan in ay weerar kala kulmaan dhinaca kale dawladda Iran waxay tilmaantay ilaa 40 qof oo u badan caruur iskool dhiganayay magaalooyin ku yaala Dahraan iyo sidoo kale magaalo koonfurta wadanka in lagu dilay oo gantaalaha ciidamada Mareykanku ay haleeleen waa sida ay tilmaameen Macron oo ah madaxweynaha wadanka Francisco waxa uu leeyahay duqeymahana waxay abuuri doonaan in xaaladda gobolka bariga dhexe ay adkaato isla markaana cawaaqibka ka dhasha iyo xasiloonida gobolka ay saameyn ku yeelanayso waxaan dalbanaynaa in Iran ay wada hadalka ku soo laabato ay aqbasho si isku mid ah barnaamijkeeda gantaalaha iyo waliba nuclear-ka si isku mid ah in ay wada hadal uga qaadato taasi oo ka mid ahayd waxyaabihii Mareykanku uu doonayay dawladda Sultanka Imaaraadka Carabta waxay la kulantay duqeyn kala duwan meelaha la weeraro waxaa ka mid ah magaalada Abu Dhabi waxaana ay ku baaqday in ay aarsan doonto goor dhaweyd wakaalada wararka ee dawladdaasi war ayay ku baahiyeen waxaana ay yiraahdeen waynu campaareynayna wax kasta oo wadankeena iyo gobolka lagu soo qaaday dawladda Qatar
iyana 3 jeer ayay gantaalo la kulantay kala duwan waxaana gantaalahaasi la soo warinayaa in ay qabatay sida ay tilmaameen meelaha sidoo kale la weerar waxaa ka mid ah Ciraaq, Kuwait iyo Bahrain waxaana dowladahaasi ay tilmaamayaan haatan inay galeen abaabul xoog leh oo ku saabsan sida arrimahaasi loo badbaadin karayo ciidamada Iran waxa ay tilmaameen weli in ay la dagaalamayaan dhinacyo kala duwan oo wadankooda ku soo duulay laakiin xiisadu waa adag tahay dowlado badanna waxay noqdeen keebla yurar dowladda Turkigu waxa ay joojisay duulimaadkii ay sameynaysa diyaaradda Turkish Airlines waxaana lagu macneeyay taasi inay la xiriirto xaaladda nabadgelyo xumo ee gobolka ka taagan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo la hadlay dadka waxa uu yiri haddii aynu meesha ka saarno aan ka taqallusno taliska kacaanka ee gacanta ku haya wadanka Iran dadku waa inay isku diyaariyaan inay ka tashtaan ayahooda taasoo macnaheedu yahay in dowladda Mareykanku ay doonayso guud ahaanba in meesha laga saaro Iiraaniyiinta raggan hogaaminaya ee kacaanka khiyaartayna la socotay qodobadii koobnaa aan kugu sheegay dagaalka ayaa intan ku dhan warar kale oo waaweyn ayaa soo socda indhaha ku hay channelkayga cusub ee Barrow Show halkaas oo aan ku tabin doono xogaha xasaasiga khudbadaha madaxdu ay jeedinayaan wakaaladaha wararka waxay qorayaan Israa'iil sida uu fakaraysaba waa maasantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar